waxaan kala rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego weliyo coldoon ama samafalo coldoon muddo 2 sano ku dhow buu xiran yahay sababtu uu xiran yahay waa sabab maanta qof kasta oo caqli faahim ah uu garan karo dulmi buu ku xiran yahay waxa dhacday garsoor nimankii aha looyaradii u dacwiyay inay garsoorkii oo dhan iska casilaan waxaanu isla garan karaa coldoon waxa uu ku xiran yahay qofna macaayin qof ma dhicin qof ma dilin wuxuu xiran yahay qarannimada Soomaaliya sida uu ugu mintiday iyo ummadda Soomaaliyeed masiirkeeda soo uga hadlay ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa coldoon in la isbarbar taago xarigiisuna waxaanu cadeynaynaa adduun iyo aakhiraba ku cadeynaynaa oo aan ognahay oo aan ka gabanayn inuu wax yahay wax dulmiya yahay dulmiguna uu san ahayn wax wanaagsan ama sii waaraya haddii cid la xirayo Soomaaliland cid xiraso tuugtii baa joogta oo khamriye cabki xashiishada iyo khamriga ka ganacsanayo Kenya baa jooga oo gacan ku dhiiglihii baa jooga oo haddii baydankeedii khay waxa jooga kuwii diinta iyo nabiga inay caayaan caadaystay Soomaaliland cid ay xidho ma aanay waayin ninkaas waa nin samafala waa nin sharaf leh waxaan ku codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed coldoon in loo hiiliyo Muuse Biixina waxaanu kula talin lahayn shakhsigaas sharafta leh karaamada leh samafalaha dhalinyarada xarigiisa waxdan kugu jirtay inaad iska sii daysid ummad badanna way kala hadashay waxba dhaga adayga iyo qof la dulmiya macna fara badan kuma jiro ummadda Soomaaliyeedna 18 gobol oo Soomaaliya dadka degan ninkaasi wuxuu xidhay qarannimada Soomaaliya wax kale uu xidhnaa inta inaad garataan ka jawaab celisaan baa loo baahan yahay